caafimaad ma qabo nin dariskiisoo qatan oo carruurtii gaajo ku seexanayaan dhere ku seexday caafimaad ma qabo ninka haba isu maleeyo in beerkiisii iyo wadnihiisii iyo xubnihiisii ay fiican yihiin haba isu maleeyo sakadu caafimaadkay ka mid tahay hadday ilmaha jiradaan jiradaas kuma ekaanayso dadka saboolka keliya cayayaanka jirada faafiya ma yaqaan ninkaana saboola ee ku dhac ninkaana maalqabeena ee ka leexo ma yaqaan marka in dariskaaga gaajaysan aad wax siisid caafimaadkaagay ka mid tahay sidaas lamida ayaa xajkuna caafimaadka uu ka qayb qaataa qofku meesha ku dhasho ku koro weligii joogo markuu ka tago waxbaa u kordha caafimaad baa u kordhaya caqli baa u kordhaya dareen baa u kordhaya cibaadaadkiina waa wada caafimaad jirkana macaamilkana waa caafimaad bulshaa waxaanu niri bulshadu sida qofka u xanuunsaday u xanuunsataa bulshadeennu inay xanuunsan tahay qisaan xasuustay baan idinka sheekaynayaa inaanu bulsho xanuunsannahay nin xeer ilaaliyaaba ay u warramayay habeen gurigiisa igu casuumay wuxuu yidhi maalintii aan shaqada bilaabay asbuuc intaanan joogin nin baa ii yimid weliba qaylu ku soo galay albaabka qaylo soo qaylinayo la celinayo war ninkan maxaad u celinaysaa waa soo baxay yaa weeye waa ninkan maxaad u celinaysaa aduu ku rabo dee soo daaya wakti ma dhigan hadda ii soo daaya waa la soo daaya wuxuu yidhi niyo waxaan la qaylinayay nin baa jira dil ku xukuman faylkiisii madaxweynaha la taal caawa hadduu saxiixo ninkaa berri waa la dilay waxaan kuu sheegayaa ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga warbal fariisuu yidhi maxaa tiri ku soo celi ninkaas ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga adigu soo ka noolayo hor fadhiyo ii sheekaynayo see ku dhacday anaa ka shaqeeyey buu tanaaba ka daro anaa waxaan ka shaqeeyey ninkaa inuu i dilay oo maxkamad la saaro oo dil lagu xukumo la toogto see uga shaqaysa wuxuu yidhi askarigii soo qabtay baan laaloosh siiyey si ay dhiigii dembi baaraha faylka qorayay baan laaloosh siiyey isbitaalkii la geliyey frijiteerka takhtarkii joogay baan laaloosh siiyey maxkamaddii la saaray macnaha isbitaalkii isagaa la geeyey ninkaan nool kan wax dilay maxkamaddii la saaray baan laaloosh siiyey waxaan laaloosh siiyey looyarkii difaacii racfaan buu qaatay waxaan laaloosh siiyey xeer ilaaliyihii ku doodayay ninkaa in la dilo waxaan ilaa hadda waxaan laaloosh siiyaa xabsiga uu ku jira askarta ilaalisa taariikhda caynkaasi adduunka meel ay ka dhacday ma jiro inay dhici doonto xataa u malayn maayo wuxuu yidhi maxaad xaasidnimada intaa le-eg maxaad u samaysay arrinkaa buu yidhi horta waxaan u sameeyey buu yidhi waxaan jeclaystay isagoo la wado oo garbaduub loo wado oo tiirka lagu xidhaayo inay indhaha iyagu isqabtaan uu arko inaan tiir ku xidhay oo aan toogtay wuxuu yidhi ma weydeen nin mooryaano $5 aad siisidoo madaxa ka togte maad lacag yar bixisid 35 kun baa iga gashay marka waxaan ka jeclaystay inaan lacag bixiyo luuq lagu dilo waxaan ka jeclaystay in tiirka la suro isagoo ii jeeda aan arko in tiirka la suro okay hadda marka maxaa ku daray hadda ilaah baan u toobad keenayo waxaan aan galay inay dembi adag tahay baan dareemay ilaah baan u toobad keenay ninkaa in la dilo ma rabo waxaasidnimada intaa la eg maxaa ku gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey buu yidhi ingiriiskaan deganaa lacag baan u soo diray shirkad baan wadaagnay shirkaddiina waa iga dhacay xaaskaygiina waa guursan mujtamacaas mujtamac caafimaad qaba ma la dhihi karaa aniga laba yaabi maayo mida kan shaydaanka ka batay oo u sheekeeyey oo maskaxdiisii ku xaaraya
askari takhtar lawyer qareen CID sarkaal ma nahay mujtamac jiran ma samani mujtamac jiran baa waana dalkoo dhan maaha hal magaalo keliya ficilada caynkaas iyadoo wajiyo kala duwan leh dalkoo dhan bay ka dhacday mucaamalaadka islaamku marka waa caafimaad bulshadeed been ha sheegin waayo ma jeclid in been lagu sheego ha khiyaanin ma jeclid in lagu khiyaano waxa hadin ma jeclid in lagu hado waxa dil ma jeclid in lagu dilo waxa dulmiyin ma jeclid in lagu dulmiyo waa caafimaad wax kale ma آيات القرآن كانت محيتر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالم ما هو بني آدم كريم عالمين أوردن ما هو العالم وعالمين هل عالم بانو مقام لكن القرآن يدعو عالم كيد يكون نشر وقت كان وقت وماها راشن كان راشن وماها بلما دينا بلما وماها قريه إن قريه وماها لوضو عالم كيدا يكون نوش عيانكو عالم كيسو كنو لي عالمين تاس أوردان يصوبانيه محمد هاشعني ينبت قليو دوشي سهاهات يرحمة ويه إنما أنا رحمة مهداة وحانا هين حريص لهدييين السجن صدح إلى ما تنصنوا النولا صدح إلى ما تنكي ساسنو noloshiisi waxay ahayd nolol laga barto naxariista inama ana wax kale ma ahi illa rahmatun muhda naxariis ilaah rahmad leh nabi rahmad leh risaalad dhanbaal rahmad hadith bu nabigu wuxuu ku leeyahay alayhi salatu wassalaam social study علوم الاجتماع عنوان باجره ardayda bartaa ay la kulmaan oo ah society is an organ mujtamacu waa organ waa qof oo kale wadnihii wuxuu shaqaynayaa jirka oo dhan buu dhigsiinaya sanbabkii wuxuu shaqaynayaa jirka oo dhan buu oxygen siinaya haragii wuxuu isku hayaa jirkii lafihii coordination system jirkii bay wadayaa hadba meel geynaya indhihii jirkii bay u shaqaynayaan mid kastana intii kaloo dhan baa u shaqaynaya xubin walba jirkoo dhan bay u shaqaynaysaa jirkii oo dhanna xubin walba u shaqaynaya xubintaasuu shaqay mujtamacu markuu sidaa takaaful iyo takaamul u sameeyo markaasaa raxmadda ilaahayna kor uu ka helaya hoosna risiq uu ka helaya isagiina nolol sacaado leh uu ku noolaanaya inamaa ana raxmatu lmuhdaa xadiis waxaa jira nebiga uu dhahayay in masaajidkaygan aada ku ictikaaftaan xadiiska micnihiisaa sidaa ahaa waxaa idinkaga khayr badan nin walaalkiina danihiisa inaad la soo fulisaan waa takaamulkii isbuuxintii wey nin walaalkiina danihiisa masaalix dunyawiyo yar oo uu leeyahay baa waxay ka khayr badan tahay in qofku uu ku ictikaafo masaajidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam halkaas waxaad ka garanaysaa sida diinta islaamku ay u xoojisay takaafulka ijtimaaciga markii nin walba oo naga mida uu noqdo mid u maqan inta kale maslaxadoodii inuu ilaaliyo dee halkaas waxaad ka garanaysaa quruxda iyo shacniga soo bixi lahaa mujtamaca meesha uu gaarayo halkaasaad ka garanaysaa laakiin nin waliba markii uu u howlgalo inta kale inuu colleeyo burburiyo mujtamacaas mujtamaca adduunka ku waarayana maaha aakhirana waa hoogaya diinteennu marka waa diinulmaslaxa maslaxad oo dhanna waxaa weeye public interest wax maslaxad gaar la yidhaahdaa ma jiraan public interest daartaan caawa hadday soo dunto laa qadar allah kulligan waa dhaawacmayna waxaan intii wax dhaawacaan noqonay maslaxad gaara wax la yidhaahdo mujtamacii ay ku xoogowda maslaxadda gaarka ah
mujtamacaas waa mujtamac halaagsamay maslaxadu oo dhan waa public interest waayo caafimaadkeenni baa isku xiran dhaqaalaheenni baa isku xiran amnigeenni baa isku xiran bal siyaasadeenni baa isku xiran public interestina 5 qodob bay ilaalisaa diinta fiqh al-masaalix aad bay u qeexday shantaas waxaan ilaalinna diinna ma aha xukunna ma aha nafta bani aadamka diinta bani aadamka iyo iimaankiisa qofka iimaankiisa iyo diintiisa hantidiisa caafimaadkiisa iyo sharafkiisa shantaas diin aanan ilaalin diin maaha shantaas system aanan ilaalin system maaha